Maalinta guushaada waxaa ku jeclaanaya dad aadan ka filayn in ay ku jeclaadaan. Sababtoo ah dadku waxay qofka jeclaadaan waa marka uu guulaysto oo keliya. Balse su'aasha malyanka dollar ku kacaysa waxay tahay, adigu maxaad uga baahan tahay markii aad guulaysato dadka ku farxaya guushaada? Jawaabtu waxay noqon kartaa ma jirto wax aan uga baahanahay maalintaas. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa dadkaasi in aad wax badan ka codsanaysay in ay garab ku siiyaan, balse ay ka aamuseen. Haddaba waxaad ogaataa, haddii aad rabto in aad guulaysatid, ha noqon qof samri waaya una adkaysan waayay xaaladaha adduunyada. Sababtoo ah Ilaahay wuxuu jecel yahay dadkiisa kuwiisa samra, kuna samra wax kasta oo Ilaahay u qadaray. Weligaa hal mid samee, taas oo ah waxaad qalbigaaga ka ilaalisaa cuqdada iyo xaasidnimada. Sababtoo ah Ilaahay ma jecla kuwa xaasidiinta ah. Mar kasta oo aad halkii aad rabtay gaadhay, waxaad awood u yeelatay xaqiijinta meel aad jeclayd gaaritaankeeda. Midna ogow, waqtigu wuu dheeraan karaa, wuuna gaabnaan karaa. Balse adigu waa in aad og tahay waxa kaa maqan iyo waxa aad haysato, waxa ay ku kala duwan yihiin oo keliya. Markii aad intaas ogaatid, waxaad jaanis u haysataa keenidda ama raadinta waxa kaa maqan markaa. Qofkii shalay ku caawiyey markii aad caawinaadda u baahnayd, weligaa ha ilaawin, hana la simin dadka kuwooda aan garashada lahayn. U wanaaji sida ay hooyadu ama aabbuhu u wanaajiyo ilmihiisa ama waalidkiisa. Sababtoo ah qofkaasi wuxuu galay abaal ay mudan tahay in aad gudid ama la joogaba xilligiisa guditaanka. Ha noqon qof aan mudnayn in abaal loo galo. Sababtoo ah mar kaste oo aad garatay in shalay abaal lagu galay, waa mar kaste oo loo baahan yahay inay kugu jirto inaad gudid, inay kugu jirto inaad qofkaasi wanaajiso, inay kugu jirto inaad og tahay qofkaasi inuu yahay qof kaaga dhow dadka, inaad og tahay inuu qofkaasi yahay qof ku maal gashaday, ku garab istaagay, kuna tusay sida uu raalli uga yahay inaad guulaysatid waxna noqotid. Weligaana waxaad iska ilaalisaa waxyaalaha inta badan kuu diidaya ama kaa hor istaagaya waxa aad jeceshahay. Mar kasta waa kuu muhiim inaad og tahay waxa aad jeceshahay iyo waxa aad neceb tahay. Mar kastoo aad kala ogaato waxa aad jeceshahay iyo waxa aad neceb tahay, waxaa kuu fududaanaya waddada saxda ee aad raaci lahayd, waxaana garanaysaa bartilmaameedkaaga iyo halka aad rabto inaad ka dhaliso gooshaada. Sababtaan kuu sheegayaa, markii cayaaraha aan daawanayno, markii kooxdu ay hesho waxyaalahan la yidhaahdo rigooraha ama penaltiga, ninka goosha laadaya bartilmaameedkiisa ama targetkiisa wuu og yahay. Laakiin goalkeeperku ma ogaan karo halka laga dhigayo banooniga. Laakiin balaayarka goosha laadaya, rigooraha laadaya ama goosha laadayaba wuu og yahay targetkiisa halka uu ka dhigayo. Laakiinse waxa uusan ogeynba waxay tahay in laga qaban doono iyo inuu dhalin doono. Laakiin midda ugu muhiimsan ee uu maskaxda ku haystaaba waxay tahay ama targetkiisa uu yahay halka uu dhigayo, filashadiisuna waxay tahay inuu dhalinayo. Waana waxa mar kasta lagaaga baahan yahay inay kuu rumoobi karaan, adiguna aad intaasi in ka badanba aad samayn karto. Waad mahadsantihiin.